maxaa qofka bini aadamka u fiican dhaqaale ahaan maamul ahaan bulsho ahaan bini aadamka maxaa u fiican su'aasha in laga jawaabo maxaa bini aadamka u fiican waxay keensatay in la isweydiiyo waa maxay qofka bini aadamka qofka bini aadamkii waa kuma markii la isweydiiyey waxa yimi theories ama aragtiyo kala gadisan oo qofka bini aadamka lagu sifaynayo aragtiyaha kala gadisan soo baxay waxay yeesheen nudum ama nidaamo siyaasadeed waxbarashadeed dhaqaaleed bulsheed oo ku salaysan wixii qofka bini aadamka fikradii laga rumaysnaa iyo wixii loo arkayay maxaa saalix u ah maxaa u suuban